أهلا حياك يا شهر انت رياك يا محلى مزاياك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan, waxaan ku jirnaa shahru tawba, waa bishii Ilaahay loo noqonayay. shayaadiintii buu Ilaahay kaa xidhay, albaabadii naarta ayaa laga ooday, albaabadii jannada lagu furay. Ilaahay addoommadiisu u dembi dhaafayaa, qaarna naarta laga xoraynayaa. laa ilaaha ila allah. Ilaahay waxa uu ku leeyahay ii toobadkeen, naxariistayda ha ka quusan, waan kuu dembi dhaafi una aabbayeeli maayo. Ilaahay wuu ku jecel yahay, ilaahay khayr buu kula doonayaa, ilaahay wanaag buu kula doonayaa. ilaahay waxa uu doonayaa inuu ku dembi dhaafo. wallaahu yuriidu an yatuuba calaykum. ilaahay toobadiina inuu iniga aqbalu doonayaa. yuriidu allaahu an yukhafifa cankum. ilaahay inuu iniga fudaydiyo ayuu doonayaa. towbadaaduu aqbalayaa, istikfaartaaduu aqbalayaa, oohintaaduu ilaahay aqbalayaa. wahuwa aladii yaqbalu atawbata can cibaadihi wayacfuu can asayi'aat. ilaahay waa ka towbada aqbala ee dunuubta dhaafa. walaal ramadaan way dhaqaaqday, tobankii horaa sii baxaya. adigu weli ma sidii baad ku jirtaa? ma xaaladii baad ku sugan tahay? ma macaasidii baad ku jirtaa? ma ribadii baad cuntaa? ma gubbihii baad qaadataa? ma dadkaad isku dirtaa? ma dadkaad dhibtaa? ma xumaantii iyo sinadii baad la timaadaa? weli ma macaasidii ayaad ku jirtaa? walaalo maxaa ku helay? maxaa ku qaatay? aaway akhlaaqdii? aaway maskaxdii? aaway walaalo fikirkii wanaagsanaa? maxaa ku qaatay? rabbigaa wuu kuu naxariisanayaa, rabbigaa wuu kuu yeedhayaa. ilaahay waxa uu ku leeyahay, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim. waxaad ku tidhaahdaa nebi allow, addoommadayda xadgudbay, dunuubta la yimidow, laa taqnatuu min raxmat illaah. naxariista ilaahay ha ka quusanina. ilaahay dunuubta oo dhan ilaahay wuu dhaafaa. ilaahay xadiisu qudsi waxa uu ku yidhi, yaa cibaadii addoommadaydiiyow, innakum tukhti'uuna billayli waannahaar. habeenkii iyo dharaartiiba waad dembaabtaan, waad geftaan. wa ana akfiru dunuuba jamiican. aniguna dunuubta oo dhan waan dhaafaa. faastakfiruunii akfir lakum. istikfaar la yimaada oo dembi dhaaf i weyddiista, waan inii dembi dhaafiye ayuu ilaahay leeyahay. ilaahay wuu ku yeedhayaa, ilaahay wuu ku jecel yahay, ilaahay wanaag buu kula doonayaa. ilaahay waxa uu ku yidhi xadiisu qudsi, waxa uu ku yidhi, ina nebi aadamow, innaka maa dacawtanii warajawtanii. haddaad i baridid ood iga rajaysid, ghafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaalii. wixii dembi kaa dhacay waan kuu dhaafi, una aabbayeeli maayo buu ilaahay leeyahay. ina nebi aadamow, low balaqat dunuubuka canaana asamaa. dunuubtaadu hadday samada ay gaadho, uma istakfartanii, kadibna dembi dhaaf aad i weyddiisatid, ghafartu laka waan kuu dembi dhaafi. ya bna aadam, ina nebi aadamow, haddaad iila timaadid buu ilaahay ku leeyahay, dhulka oo buuxa oo khataayaa, gaf iyo dunuuba, uma laqiitanii laa tushriku bii shay-an. aad ila kulantid adigoon ii shariig yeelin waxba, waxaan kuula imani aniguna intaa ilaa dhulkaas oo buuxa oo dembi dhaafa ayaan kuula imani. tubu ila allah. ilaahay u toobadkeen, ilaahay u noqo, istikfaarta la imo, dembi dhaaf ilaahay weyddiiso, dembi dhaaf ilaahay weyddiiso. ibliis baa waxa uu yidhi, ilma nebi aadam waxaan ku halaagay dunuub, iyakuna waxay igu halaageen laa ilaaha ila allah inay yidhaahdaan oo istikfaar la yimaadaan. ilaahay toobadaada wuu ku farxayaa. ilaahay xumaan kulama doonayo, ilaahay jannuu kula doonayaa. xasuusa wanaagga,
xumaanta ka fogow khayrka la imo ilaahay subxaanahu wa tacaala towbadaada wuu jecel yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay nin daabadiisii wata hashiisii wata hashaa waxaa u saaran raashinkiisii iyo sharaabkiisii ayaa u saaran dhul saxraaya ayuu soo maray meel buu hoos siibsaday geed hoostiisa awrkiina xaggaasuu ku xidhay kadibna wuu soo toosay wuxuu arkay awrkii oo meeshii aan joogin waxaa la socda raashinkiisii waxaa la socda cuntadii meeshaasuu is arkay inuu ku dhimanayo dhinac walbuu u orday wuxuu raadiyaba wuu waayey wuxuu is yidhi geedkii hoostiisii naftu ha kaaga baxda ee iskaga seexo xaggii in meeshii buu u soo noqday markuu meeshii u seexday oo indhaha isku qabtay ayuu indhaha kala furo wuxuu arkay hashii ama awrkii oo meeshii ku xidhan oo raashinkiisii oo dhan uu ku sugan yahay uu ku jiro oo wada ayuu arkay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi addoonkaasi wuu farxay min shiddati alfarax ayuu khaldamo waxa uu yidhi ilaahayow adiguna addoonkaygii baa tahay aniguna rabbiga ayaan ahay waa min shiddati alfarax nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam addoonku markuu ilaahay u soo noqdo ilaahay kaa farxaddaa u farxay wuu ka farax badan yahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam ilaahay wanaag buu kula doonayaa khayr buu kula doonayaa waxaa la rabaa inaad ilaahay u noqotid inaad dhimashada xasuusatid inaad qabriga xasuusatid axadu الصaalixiin aqalkiisuu ka dhex qotay qabrigaana luxud buu u sameeyey albaab buu u sameeyey markuu arko inuu qalbigiisu qalalay markuu arko inuu adduunkii u jecel yahay markuu arkay inuu dikrigii iyo diintii u ma aragtaayey u gaabinayo markuu arko qabrigaasuu gelayey luxudkaasuu isku soo xidhayey kadibna xaggaasuu ka dhex qayliyayey isaga oo le rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii maa taraktu ilaahow dib ii celi wanaaggii baan soo samayn khayrkii baan soo samayn ilaahow waan dadaali ilaahow dib ii celi ilaahow khayr badan ayaan soo shaqaysan ilaahow waan toobadkeeni ilaahayow i celi qof ima maqlayo meeshaasuu ku jiraa kadib markuu dhididku u qabto uu nakhasku qabto uu gubto ayuu albaabka xoog ku furayey laydhuu u soo baxayey markaasuu odhanayay haa yaa nafsu qad cudti facmalii maa qulti nafay waadigan dib u soo noqday waa kan ilaahay kaa aqbalay wixii aad ballan qaadisee lahayd waan samayni imikaba samee nafay walaalayaal ilaahay han u toobad keenno waxaan ku jirnaa maalimo khayr badan ayaan ku jirnaa wataa bishii dhaqaaqday tobankii hore durba dhaqaaqay ilaahay han u toobad keenno ilaahay han u noqonno istikfaarta han la nimaadno towbada han la nimaadno dunuubtii inaga dhacday han ka murugoonno dib yaanu ugu noqon ilaahay han weydiisanno inuu noo dembi dhaafo inuu noo naxariisto inuu maalimahan khayrkayga iyo fadligayga uuna alla inaga quudin alla uuna inaga qadin han weydiisanno ilaahay wajazaakum allahu khayran wasala allahu calaa sayidina maxamed